horta waan aad iyo aad baan uga xumahay tii aan dalka kala cararayey ayuu muuse geliyey waxaan ilaa maalintii aanu doorashadii noo dhammaatay ee aanu tiyo layskala laadlaado anagu aanu endorse garaynay doorashadii iyo madaxnimadii muuse annagoo bareshar badanna saaran tahay oo anagu xusbi ahaan bersatiiskanu hadlay aanan ku qanacsaneen haddana waxaanu siinay mudnaanta sina awalba u siin jirnay qarankaanu siinay ilaa maalintaana waxaan ka shaqaynaa xusbiga haddaan nahay oo cid inaanu maadaama ay dildilaac weyne nagu yimi inaynu gacanta siino madaxweynaha dadka isku keenno dad badan waxay u qaateen markaa qaarna waxay yidhahdeen faysal waa la shuraake qaarna waxay yidhahdeen waa la taliye ayay naga dhigeen markaa maanta dalkeena waxaa ku socotaa dibadda arrimo badan baa inagu socda dowladda magaalansa soomaaliya markaa ka talisa muqdisho xaafad ka mid ah waxay ka dhigtay prioritigeeda sidii somaliland adduunka uga soo xirxiri lahaayeen dagaal aan loo biyo eegin oo tuulo la yidhaha tukaraq ayaynu gallay shabhada baa inagu samaysmay waxaa ka socda gobolkii isbeddel xoog leh oo ay rool weyn ka ciyaarayaan reer soomaaliya oo aan hubo inuu ajendahooda ku jiro si soomaaliya loo undermine garayn lahaa arrimahaasoo dhan anagoo eegina waxaan xoogga saarnay inaynu dadkayna midayno madaxweynaha tala ka siino laba arrimood baan aad xoogga u siino waxay ahayd arrinta khaatumo iyo waxay ahayd arrinta magaalanaysa dagaalka ceelaf weyn labadaasaa anigu xoogga aanu saarnay inaan gacan ka geysano labadii waxaa nasiib daraa inay aanay dhammaanin oo midna khaatumo arrinteeda aan u dhammaan oo professor cali inuu ku dibadda ku maqan yahay isagoo wax tirsanaya xaggana uu caara ka samaysnay ayaa dhacday markaa waxaanu rajeynaynay inaanu arrintan doorashooyinka iyaguna waktiga taagan yahayn inaanu dhaqaajino oo qabiilka laga baxo institutionskii dib u abuurnaanu ka shaqaynay taas waxay keentay inaanu xoog saarno xusbiga kale macaaridkaa oo aad iyo aad ugu mahadnaqino inay naga ogolaadeen inay ogolaadaan inay commissionkani uu shaqadiisa wato maadaama 2019 uu waktigoodu ka dhacayo inay haddii naga gaarsiiyaana dowladaha hoose inoo sameeyaan kabacdina qodobkoodii labaad ahayd hala kordhiyo oo labaha lagu daro oo anagu hore anaga iyo kulmiye aan 2008 soo saarnay in lagu daro taasaan ku dhexdhexaadinay waxaa nasiib daraa inuu madaxweynuhu uu labadii naga diiday halkaas horta wadaadada ku joogsadeen anu markaa aanu aragnay inuu madaxweynuhu aanu tala qaadanayn oo saddex xusbi marka aan u tagnay aanu la qadaynay aanu la qayilnay wax allaah wixii aanu u sheegnay midna aanu ka bixin waxaanu aragnay aanu soo jeedinay oo runtiina ah haddii shaqayn waayaan institution democratic institutionska aanu samaynay oo asxaabtii shaqayn weydo doorasho dhici weydo in laga maarmaan noqon doonto in shir wada tashi qaran in la sameeyo oo markaa dalka la badbaadiyo ayaa aan doonaynay maantana waa ogtihiin dalkeena halku marayo gudahiina waa arkaan waxaa hoos u dhacay magaalanse amnigii baabuurtii baa la dhacayaa dhalinyartii baa wax kufsanayso baabuurta wadooyinka isku taagiso booliiskeenii oo lacag qaadan aan qaadan magaalanse aanayn tababarna lahayn magaaladii milyan iyo badh baa ku nool iyo booliiskeena intuu leeyahay xirfadiisu isma leha hawlo badan baa inoo yaala maanta waa aragteen haddaad wasaaradda aad tagtaan meesha turkiga haddaad tagtaan safaaradda dadkeenii markaynu dawo u weynay caafimaad u weynay kuwii heliya inay dibadda u tagaanna fiisa ma haystaan baasaboor ma haystaan halkaasay isdul saaran yihiin waad ogtihiin dhibaatadaasoo miirnana waxaan dana jecleen inaan gudaha midayno laakiin waxay u egtahay inaanu muuse u diyaarahayn uu ka jecel yahay garramta in la garramo uu jecel yahay in la liyooyootamo oo dhaqan ku soo noolaa 27 sano oo ahaa inuu had iyo goor qof mucaarid uu jiray ayuu ahaa markaanu shareecta khudbadiisii waxaan leenahay wax kale ma aha dadku sii kala fogeeyay waan ka xumahay inuu
shan iyo afartan miro hadlay oo shan iyo afartankaa miro wax ma xura aanu ku hadal kii anagu aan u ogolaanay inuu madaxweyne yahay uu noogu yeedhay uu nagu casuumay aniga wadane inuu maanta isagii uu kuweysha maalgeliyo uu yidhaaho maxkamad hala tago waa aad baan uga xunnahay legitimacygiisii uu shaki geliyo taasi waxay arkaysaa in adduunkuna hadduu geliyo maalintii u dhaweyto oo u dambeysay ninkii ka socday safaaradda Canada su-aashaasi uu weydiiyey wuxuu yidhi waxa la leeyahay waa illegitimate madaxnimada magaalada Muuse waxaan waa been 80 buu ku helay wana wada endorse kaleena waa dacay isagiiba hadda bilaa sharci yahay keen waa ka xumaay marka waxaan leenahay si Soomaaliya de Muuse waa kaas badan Muuse waa ka ku fadhiyey daayiryaale waxaan hala kala diro way kala diray waxaan yidhi hala baarlamaanka la soo horeysay doorashadiisa wuu naga ogolaaday waxaanu si loo qaybiyo kuraasida saddexda xusbi isaga wuxuu ka socday kulmiyuu ka socday isagii ay kahayn markaanu qaybinay 28 marka madaxweynahani uma diyaar ahaa inuu wax kelmad wax qor oo dalka yaala oo mushkilada inuu xaliyo nin u diyaar maaha isagii madaxweyne haddaan isagu xalinin niman dadkan la saarayay leeyahay ka taga meesha waqti uu dhamaaday ayaa wax xalinay oo iska sii fadhiyay isaga xilku saaranyahay xilkiisa haduu ka soo bixi waayana sharci ahaanna waa la maranyahay impeachment shirahana shir qaran qaban ka tashan ku eeginayno haddaanu aragno inaanu lahayn karti wad oo hogaanimo oo Soomaaliland halka maraysa uu ka saari karo haddaanu aragno ma ogolayno dalkayga burburiyo Muuse waanu ka horteginaa waanu ka tashanayna xaqna waxaanu leenahay inaanu wadankayga badbaadino shirweyne qaruux noqonaya waxa laga xisaabtamaya 27 yearskii maxaa la qabtay maxaa inaga xumaaday maxaa inoo wanaagsanaaday maxaa ina hor yaala challenge maxaan opportunities haysanaa waxa la qiimeynaya dawladda maanta taagan waxa la qiimeynaya madaxnimada magaalada Muuse waxa la qiimeynaya sharciga ay ku joogaan baarlamaanku inta ma kala qaybiyo hadaa la arko sharcigu oo arkay inuu bilaa ay ku jiraan bilaa sharci ku joogaan magaalada xildhibaanadu iyo dawladaha hoose oo wax sharci oo oranaya 15 sano sii joogay aanu jirin tala ka soo baxaysa maxkamadda la tagaya waa an constitution ay joogaan Muuse haddaan aragno xilkiis ka soo bixin waa laga tashanaya amba marka shirbeelada lagu doorto amba impeachment lagu sameeyay noo fadhiyo maayo inuu wadanka fadhiyo nin aan wadi karayn oo nagu collapse garo yeelimayn gudoomiye magacaygu waa Cabdiraxmaan Fataasi waxaan ka socdaa telefishinka Real madaxweynuhu hadal shirkiisa jiray shalay waxa ku sheegay in hadii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka waqtigooda ku qabsoomi waayaan arintaasi ay mas'uuliyadeeda qaadeen xisbiyada mucaaradka oo qaar kamid ah u sheegay adigu arintaas kula muuqata mas'uuliyadda isaa qaaday anaga xilnimo saarna hadduu qaban waayo oo waqtigooda qaban waayo baarlamaankaasna fadhiyi maayo isagana hoggaankiisa waa ka tashanayna waan ka tashanayna waxa cadaanaysa inaanu capacity u dalku xukumaan lahayn hadday taasi cadaato qofku waxa weeye wad aragtaan dawladdiisa waa aragtaan 9 bilood waxay qabatay ma jirto waa aragtaa khaarijyadeeni waan ka fadhana waa aragtaa informationkeedii waa naga adkaaday meel quro inoo fayow qabta ma jirto meel waa aragtaa barigii sanaag waa galbaday wuxuu president Carter wuxuu doorashadii ku waayay who lost Iran-kii ayuu tula qabsaday shaha laga saayo ku waayay doorashadii yaa lumiyay maanta dalkeeni sanaagti bari yaa lumiyay maanta dagaal in galiyo ciidamadeeni intay tuulo fadhiyaan cadceeda fadhiyaan waan taaladeynaya ayaa kolba inta la isku soo urursado inta la isku soo urursay aan sugina oo maalin kasta inta la soo weeraro ayaanu daawanaa military alba sameynaya inta military ahaan ninka military maanahay waninka garan waaye war ciidankaagan maalin kasta lagu soo duuliyo inta lagu soo duulin is abaabuliyaan adoo aataaga qaado kala eri ee yiri suuga halka dhaafin adduunkii baa adduunka waan ka xiranahay Muuse waxa adduunka halka ku qoray inuu warlord yahay nin dagaalyahan yahay uu inaga xiray sidaa imaka anaga mididka nugu yahay nala hadli kar laayo oo isfahm leenahay adduunkiin lama fahmiyo de markaan in aan ummadiisi fahmi kareen oo adduunkii fahmi kareen oo keligii ila ana wax ganay aniga de muu ina wada karaya waxaan leenahay aqliga keen intaas sanadood mucaarad ahayd 27 sano mucaarad buu ahaa yurtaas aanu ka haynay
haddii ilaahay nasiibkii siiyey oon ogolaanay waa inuu waddankan u badbaadiyaa oon la badbaadinaayo oonu ka baxnaa muranka dhexdeena oon wada tashi sameyno ummadda u madeeyaa ayaa weeye intaanu ka rabna waa intaan intaan ka rab waxa weeye war way cadow badanahe war dadkan uu dildilaace war annagaa qabanna waddani war annagaa qabanna caare war aduu noo qabsoom war aduu noo qabsoom madaxweyne waanu ku taageerno oonu mucaarada hoose iska dayno oo in inagu ukubaari ku noqno gudaheena internally aan joojino intaanu ka rabna waa intaa reer Soomaaliya reer Soomaaliya waa intaan mala ficiltamino ficiltama fiicna waxa weeye inuu hogaamiyaa nala tashadaa anaguna wixii aan ra'yahayna u dhiibna laakiin hadduu doortay inuu 45 milyan uu gar naqsado de waxaan arkaa inay tahay hogaanimad maaha taasna leadershipkii aanu ka doonaynay maaha taa maaha tuu doonayey inuu madaxnimada muxuu doonayey haddaanu quality leadership lahayn muxuu doonayey muu king makerkiisi ku joogo kolba nin uu saari jiray that was good taasoo ku fiicna inuu kolba reerkooda yidhaha halkaa ku shuba inuu maanta isagii uu isku meeraysto dee kamaanu filin marka waxaan leenahay miyirka keen arrintan ogolow doorashadu hay noo socoto nimankan baarlamaanka waa sharci kuma fadhiyaan ha ka baxaan meesha dowladda hoose waad aragtaa miyiraa la kala samaystay ha ka baxaan meesha aynu adyar intii doorashada geliso laba meeyaroo fiican ku-xige aan samaystano isla ogol lahay oo magaalada inoo qurxiya anu saasaan leh anigu waan daafacay isaa nooga sheekeeyey markaan saddexdan ugu tagnay inuu si cadaalad u qabtay gobol loo siiyey anaga daafacayay ninka hadduu anagii daamur meel naga wada dhigay de waa nasiib daro daamur baa ninkii ka hadlay anugu kamaanu hadal taasi waxay ku tusisaa inaan madaxweynahani uu u yahay diyaar u yahay muran anugu kula murmi maayo maanta ugu dambaysan badan kula murmo action baan qaadaya waan kaa badbaadinaya dalka haddaan ku arkay inaad wadeen waan kaa badbaadinaya waa xili saaran waa tan u imi intaasoo guri baad dhisata adugu inta jooga anugu halkaa gurigan sanadkaa dalka u dhista dhul igu bedel inta guryaa dhisnaysaanu Soomaaliya baan daafacay oon waqtigiisa oo carruurtay ku dhintay marka kaa yeeli maayo waxaan doonaa yeelaya I have to stop you saan aabahay u joojiya dagaalka sokeeya adna waa ku joojinaya